shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka ayaa maanta kaalin mug weyn ka geystay wajiga labaad iyo wareegga 15aad ee ololaha isxilqaan dalkaaga ku dhiso iyagoo shaqo miisaan weyn ka fuliyay xarunta maktabadda qaranka ee Muqdisho. agaasimaha shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Nuur Axmed Cali iyo qaar ka mid ah howlwadeennada xafiiskaas ayaa tilmaamay inay maanta guteen waajibaad qaran oo dibidhis loogu samaynayo dhismayaasha danta guud ee dalka. shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaruhu waxay diyaar u yihiin inay maalin walba ka shaqeeyaan barnaamijka dhismo dalkaaga ee isxilqaan oo ah barnaamijkii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ku dhawaaqay. waxaan ka qabanaa halkan shaqo adag oo runtii la dhihi karo wax ka taraysa dhismaha iyo horumarka dalka. waxaan ku faraxsanahay maantay inaan joogno kaltankii 15aad wareeggiisa labaad oo shaqada qaranka dib u dhiska dalka aan joogno masxafka qaranka meel fiican ay shaqadu noo maraysaa insha Allah halkaas in laga sii wado insha Allah aan rajaynaynaa. shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka oo ka mid ah hay'adaha ugu sarreeya dalka waxay mar kasta heegan u yihiin ka qaybgalka ololaha isxilqaan iyagoo xilligan